barnaamijkaadi waxba kama maqal codkaaga aad ayuu ugu yaraa marka waxaan jeclahay inaan kasii gudubno qofta labaad oo lagu soo xiraya barnaamijka oo maamulka ay u ogolaadeen waa Fiido ayaa u maleynaya Fiido kusoo laabo microphone-ka qabso marka waxaan jeclahay Cabdishakuur haddii aad microphone-ka soo hagaajiso daqiiqad waa ku ogolaan laakiin codkaada ayaa aad u gaaban marka Fiido ayaa microphone-ka siinaya Fiido kusoo dhawow walaal السلام عليكم أنا واي مقشان أمالينا نور الدين السلام عليكم وايد سلامي إن مدن وزير واكو سلامي سلامت علنك الصومالي ونكو سلامي إن شاء الله دولتنا وحا إلهي كبر ياتي هنا قاد إنه إلهي كديغو آدم أقو فرح سنة هاي إن وركي أن إلا ورت إنت بدن بايلو دا هاي لكن إن ولي هاد الدولة وحيابا بدن أقو فرح سنة وحي تهاي دولة إلا إي هاد ما أهن متي إسكو حناقضي ميديا قلت إساقا شاقان horta taas way ku mahadsan yihiin kontanka xildhibaan ee baarlamaanka ku jiro aan doodas ilaa hadda aan ka soo yeerin aadan ugu faraxsanahay laakiin ogaada hadii idinka duldulal leedinka arko cadawgiina wuu farxaya dadkan hadda diinta ku gambanaya ee dhibaatada iyo problemka ku haya shacabka Soomaaliyeed ee dhameeyay shacabka gumaadayo waxay ku farxayaan jabkiina iyo isqabqabsigiina marka maalin dhaweed meel aan ku arkay dhaayaan wasiirka iyo madaxweynaha siyaasada taasna hadda inay beentaan u maleynaa idinkan waxa idinka codsanaya in aad miidiyaha ka beenaysaan si aadan shacabka qalbigiisa aysan waxba u noqonin oo shacabka qalbigiisa uusan u dhaawacmin anaga hadii aan dibadda joogno aad aan ugu wareerna maanta waxa Soomaaliya ka jiro xanuun badanna way nagu qabatay sida dhabta ah xanuun badan wallahi aan la soo koobi karin marka waxaan idinku guubaabinaya aniga in aadan iska qabsanina adduunyo waxay tahay mala laakiin waxa ka wanaagsan nabad iyo waqti waaro oo shacabkii masaakiinta Soomaaliya 20 sano dhibaatada haysatay inay u soo noqoto taasa fiican nin walbo dantiisa gaarka ah iska iloobo ha ku fikiro danta guud taasan ka hadalnaya aniga danta guud inuu ku fikiro aadan idinku faraxsanahay wassalaamu calaykum idaacada furantayna si fiican ugu faraxsanahay waa mahadsantihiin kolay hadalka wuxuu u badnaa saacad wasiir guubaabo iyo hambalyo ayay u badneed marka waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo inaan iraado aad waa fasaxanahay ducaale saacad wasiir waqtigaaga qaaliga ah aad iyo aad ugu mahadsan tahay waxaana ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad baa ku mahadcelin adiga iyo wasaaradaadaba iyo shaqaalaha waxaan jecelnahay anaga waqtigeena qaaliga waxaa usoo dowladdaas aan mar u aran ayagoo cageeda ku taagan naga raal ahaa noona dulqaado waqtigaada qaaliga caawa aan hortay marka kusoo dhawaad aad iyo aad mahadsantihiin gabadhaasna waa u mahadcelinayaa dadkana waan qaatay idinkana ra'yigiina aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan dhageystay waxyaabanaysaana waxaan rajeynaa waqti dhow inaan xalino xagga gaar ahaan waxaa fatwada wasaafinta ku saabsan dhanka kalena madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraha wax khilaaf haba yaraatee u dhexeeya malaha ilaahay waxaan ka baryaynaa inaysan iskhilaafin kaas waa arrin dadka qaar ay iska gaabyihiin laakiin arrin jira ma ahan mana dhici doono waana laga shaqeynaa inaysan dhicin khayr waa laga baryaa shaqaana waa laga gabana waana mahadsantahay waadin maxasalaamay asalaamu calaykum aad iyo aad umahadsan tahay aad iyo aad umahadsan tahay marka microphone-ka waa free macnaha wuu baxay miya wasiirka mar labaadaan salaameynaa insha allah hambalyaynu leenahay mar labaad inaynu qadka aynu iskugu kulmi doono maanta maalin ka sii qiimo badan oo idaacadu ay xoog u shaqaysay insha Allah 250 qofood oo qurba joog ah ayaa si aad iyo aad kugu hambalyeynaysa jaale wasiir daahir maxamuud geelle ma sha Allah la kulan dambe oo khayr leh oo faa'iido leh ayaan ku rajaynaynaa Allah cadawgana ka qabto xilka aad qaaday midda kale waa muhiim fanaaniintii qaranka Soomaaliyeed maadaama idaacadu ay shaqaynayso in gadaal loo soo celiyo mase isku daydeen inaad mar labaad maxay ahaydey aad ay ka howlgalaan abwaanintii wadanka qaranka Soomaaliyeed fanaaniintii dhamaantood maadaama tiyaatarka iyo ereyadeeda ay dawladdu gacanta ku hayso salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت عاوة كقيب قادتي انت دقيسانيسي dhamaantiin ba aad iyo aad u mahadsantihiin barnaamijkan wuxuu ku dhamaaday si sharaf leh oo Soomaalinimo leh haddana doodeena caadigeed ayaan furanaynaa Soomaaliya